السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaad akhyaartii asxaabteyda qaaliga ah. Maanta waxaan idin wadaa suugo baasto oo lagu farayareystay iyo sidoo kale dhadhanaankii baastada lagu furfuri lahay. Haddii aad saliid kaliya ah baastada ku furfuri jirtay, waxaan ku hayaa qish aad u cajiib ah oo baastada carafteeda iyo dhadhankeeda kuu soo saaraya. Aan kala faa'iideysana insha Allah. Asxaabteyda qaaliga ah waxaan halkaa ku soo huurinayaa basashii, kadibna waxaan ku soo daray hilib geel shiidan nus kiilo aad qiyaasta kugu filan. kadibna basasha iyo hilibka ayaa iskood waqti iskula qaadanaya. Saliidda unbaa uga horeysay waqtigooda isla qaadanayaan. Hilibka waa furfuraya suu kuskus iga yeelanin oo isugu dhegdheginin. Kadibna markaa isku soo shiila basashii iyo hilibkii oo basasha xataa aan badanaa la arkaynin, waxaan kusoo daray yaanyadii oon soo jarjaray. Yaanyada waxaan kugula talinaa haddaa rabto suugo carafteeda, dhadhankeeda iyo macaankeeda. Baasto waliba suugo bariis oo iska caadi waa shiidan kartaa, laakiin yaanyada hadiiba mar suugo baasto aad ku karinaysid inaad shiidin ayaan kugula tali lahay, si maaragta dhadhankeeda iyo cajiibka kasoo bixi doona ay ila aragtid. kadib waxaan kusoo daray shishiid ayaga waqtigooda isla qaadanaa, wax biyaa kuma darin, dabka ayaan u gaabiyey. akhyaarta iyo asxaabta qaaliga ah waa kana yaanyada hore kama burburinayo. Waxaan rabaa inay iyada waqtigeeda qaadato oo ay bislaato, hadhowtana ma kaaga baahna energy badan. sidoo kale waxaan kusoo daray barbarooniga budada ah, cusbana aan kusoo daray, wixii adiga aad jeceshaha ku darso. kabsar iyo toon ayaan kusoo daray, qaybna waa ka reebta kabsarta iyo toonta si suugada markay bislaan rabto laakiin wali waqti u harsan yahay aan ugu darsado kabsarta iyo toonta oo carafta aysan uga suulinin. asxaabteyda qaaliga ah markii yaanyada ay bislaato oo aan shiilo markaas ayadaa maaragtay iska baaba'aysa. Sorry codka waa la iga soo dhex galay. marka adigoo maaragtay energy iyo waqti badan aan gelin ayay yaanyada ku baaba'aysaa, waa arkaysiin. sidoo kale hilibka hadduu kuskus leeyahay markaasna wuu ku maaragtay furfurmayaa. afaarihii waa ujeedaan, yaanyadii lama arko, basashii lama arko, wuu isku soo baaba'een. kadib waxaan kusoo darayaa baradhadan waxaan rabaa iyada ruuxiisa huuris inay igu bislaato. dabka ayaa u gaaban, karootadana waan kusoo daray. waqtigooda la siinayaa, dabka unbaa u gaabinayaa, waan huurinayaa. kadibna waxaan kusoo darsanayaa kabsartii iyo toontii aan reebtay si udeegi maaragtay uusan iga yaro dhammaanin oo weli suugadii carfeysa oo fresh ah aan u helo. welina karis yare ayaa u dhiman oo kabsarta iyo toonta weliba especially xogaa inay karis gasha ayaa fiican, haddii kale waxay leedahay shiir aad u adag. marka weli karis yare ayaa u dhiman oo baradhada si fiican u bislaa. markay shiilantay biyo aan badnayn oo yariis ah ayaan kusoo darayaa iyo reyka cube. reykada ani gadaal waxaan uga darayaa, ama maradigaag hadaa ku darsanaysid suugada haddii aad ku hordarto maradigaag ama reykada ma shiilmayso, way kaa gubanaysaa oo dabka ayay kaa aadaysaa. marka suugada si aysan dabka kaaga aadin waxaa ku fiican suugada markay biseelkeedii ugu badnaa ay qaadatay inaad gadaal uga darto. biyahaas yarkaa waxay iga saacidaya in reykadii ay suugada dhex gasho, cusbadii, kabsartii, toontii, wixii dhan ay suugada dhex galaan. bardhadana way shiilantay oo maj adka, laakiin waxaa u dhiman inay dhahdo oo maaragtay afka ku baaba'do. biyihii yarkaa marka wixii dhan isugu keen soo habeeyeen suugadii saan ayay noogu qurux badan tahay. waxaa noo dhiman afaarihii baastada lagu furfurayay. asxaabteyda qaaliga ah suugada aniga baastada saan ayaan ku jeclahay, laakiin dadku isku dooq ma ahan. haddii aad jeceshahay suugo maraq leh, markay saan kugu bislaato biyo yariis ah oo furfur ah waa ku darsan kartaa. aniga barbarooni iyo basal bisaa u dhiman, wax biyo ah inaan ku darana ma jecli. suugada baastada waxaan jeclahay iyadoo qaleel ah, in baasadii oo iyadana si fiican u bislaanin oo dab ka dhicinin inaan ku furfurto oo maaragtay isku qabsado. laakiin dadka qaar ayaa jecel inay baasadana bislaato suugadana maraq leedahay. ma jecla aniga. haddaa baasada ay cadaato oo jileec noqoto suugadana maraq tahay makaa cunaya ani. saana jeclaa suugada inay u shiilan tahay oo qaleel u tahay, baasadana aysa si fiican weli maaragtay bajaq u noqonin oo u baabi'inin. afaaraas marka isku qabsato baasta sharafteeda ayaa arkaysaa. halkan waxaan kusoo darayaa afaarihii aan ku furfuro lahayn baastada. baastadaad inaad saliid cad ku furfuratid ama basal keli ah waxaa waaye marmaraa ka hawo gedisan kartaa. bardhadii iyo karootadii ayaa waxaan kusoo daray, babrikadii si wax yar guduud qurux uga dhigto. sidoo kale waxaan kusoo daray maaragtay reyko ama maradigaag ku darsan kartaa. biyo yariis oon badnayn aan ku darsaday si bardhada wax yar iigu jilacdo. kadibna waxaan kusoo daray basal iyo barbarooni. afaarahan saas u quruxda badan ayaad baastadaada ku furfuranaysaa si baastada udeeg iyo dhadhan iyo caraf u yeelato oo iyadoo cad oo plain ah isa kaaga soo hor istaagin ama kaaga soo hor bixin.
baastada aan maanta karsaday waa baasta Barilla nuuci balbalaarka ah haddii alla cala jeceshahay waa kaasaa waa kusoo geliyey haddii maaragta dooqaadana isahayna baastada nuuca jeceshahay ayaa suugadaada ku cuni kartaa asxaabteyda qaaliga waxaan jeclahay inuu fiidiyoga idin cajabiyey oo aana ka faa'iidaysateen waxaan ka codsanaa inaad comments qurux badan hoos uga tagtaan like-ta ayadu waa iska free lacag ma joogto dhaca ku sii wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh